barbaarinta ilmaha waxay qayb weyn ka qaadataa mustaqbalka carruurta sida uu noqon doono. Dad badan ayaa la ilmeyn doona sheekada nololeed ee Cabdiqadar Jubba. Waxaan halkan kugula wadaagi doonaa qiso dhab ah oo ku dhacday ninkan dhalinyarada ah. Ilmaha yar oo loo adeegsado erayo adag sida doqon, dabaal iyo damiin waxay dhaawac u geysan karaan mustaqbalka carruurta sida ku dhacday oo kale wiilkan dhalinyarada ah. Yaraantiisii waxa uu waayay labadiisa waalid ee dhalay. Hase yeeshee waxaa koriyay oo uu la noolaa qayb ka mid ah ehelka. Waxa uu ku noolaa koonfurta fog iyo miyiga maamulka Jubbaland ee Soomaaliya. Magaciisa saxda ahi waa Cabdiqadar, balse maalinna looguma yeerin. Marka aad carruurta ku ababiso inay noqdaan geesi oo weynaantoodana ay ku soo baxaan geesiyaal aan jixinjix aqoon, waa geedkii oo miro dhalay. Laakiin marka aad ku ababiso inay doqonno yihiin, mustaqbalkana marka ay weynaadaan waxay noqon doonaan doqonno ee ma noqon doonaan geesiyaal. Cabdiqadar yaraantiisii waxaa helay qoys aan dan ka lahayn mustaqbalkiisa. Waxa markasta loogu yeeri jiray doqon. Waxa uu ahaa mid ka soocan ilmaha kale oo ka takooran. Carruurtu marka ay yaryar yihiin waxa ay qabtaan wixii lagu celceliyo, sidaasi si la mid ah. Wiilkan waxa uu aaminay in uu doqon yahay, sidii loo dhihi jiray waa doqonkii uun. Waxa uu yidhi, layma garaaci jirin, cunto aan cuno waan heli jiray, dharna sidoo kale. Laakiin waxaa layga dilay dadnimada. Waxaa layga dhaadhiciyay inaan ahay doqon, waana tan ilaa iyo haatan isaamaysay oo aan ka kaban la ahay. Muddo 20 sano ah ayaa loogu yeerayay doqon, isna uu aaminay in uusan la mid ahayn carruurta kale oo uu yahay mid doqon ah. Si kastaba ha ahaatee, Cabdiqadar waxa uu soo galay baraha bulshada. Waxa uu soo caanbaxay isaga oo aaminsan inuu yahay doqon. Markan waxa uu rumaysan yahay in uu ka dhacay nolosha oo uusan mustaqbal dambe ka lahayn, in uusan la jaan qaadi karin asaagiisa isaga oo doqon ah. Sidaas darteed waxa uu sameyn jiray wax kasta oo ay dadku faraan. Barta TikTok oo uu ku soo caanbaxay ayuu ku soo gudbin jiray muuqaallo isaga oo uusan joogin miirkiisa. Muddo kadib waxa uu u soo safray magaalada Muqdisho, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde. Laakiin Cabdiqadar waxa uu la yaaban yahay sida loo soo dhaweynayo isaga oo doqon ah. Marka uu soo dhex galay magaalada, waxa uu arkay dadka oo si caadi ah ula dhaqmaya, muuqaallo la duubaya, isla markaana la nool iyaga oo aan waxba ku oran. Arrintaasi la yaab ayay ku noqotay, maxaa yeelay wuxuu aaminsanaa inuu doqon yahay oo uusan la noolaan karin asaagiisa. Kadib markii ay si weyn u soo dhaweeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee uu soo dhex galay, waxa uu samaystay shaqo abuur, waxaana uu iibsaday gaari uu ku xamaasho. Maanta isaga oo 32 sano jir ah ayuu aaminay in uusan doqon ahayn oo uu la dhibaatoonayay doqonnimo carruurnimadiisii lagu barbaariyay. Si kastaba ha ahaatee, carruurtu waxa ay noqdaan sida loo barbaariyo. Marar badan erayada doqon, dabaal iyo damiin oo loogu yeero ilmaha yaryar waxay saameyn ku yeelataa mustaqbalkooda. Bal adigu aragtidaada hoos nagu la wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare.